السلام عليكم. waa videoga ugu dambeeyay markaad waxaan sameynaynaa dhulka iyo hal mar aan furaynaa meeshan waxaan taabaynaa ishaas yar kadibna kuwan kale kulli aan soo gelin hal mar kadib aan isku daynaa inaan wax dhan hagaajino soo waxaan ka bilaabaynaa hal mar geedaha inaan mid taabano aan kor ka fiiri karnaa waxaan geenaynaa meesha u baahannahay aan ko taabanayna G kadibna waan qaadi karnaa kuwan kalena sidaas oo kala sameyn kartaa taabo gaada kadibna waan qaadi kartaa soo marka haddii aad u baahan tahay koobi lacal waxaad taaban kartaa Alt D kadibna si uunan meel kasta kuuga qaadin u baahan tahay X bis iyo Y da bis u baahan tahay OGT waxaad taaban kartaa Shift Z soo Z ga maahane wax kalena wadi kartaa hadda cagaarka iyo waxa daaran gaduudka ama xasaanka kadibna meesha u baahan tahay gay rotationka wax yar ka bedel scale-ka hadda u baahan tahay kadibna geed cusub aad wadaysataa soo kanna sidaas oo kale hadda ma taqaan soo gelisid objectyaal badan as leedahay sidee uu ku ogaa karaa maadaama hal kala wada leeyihiin dhinacan kor kaalay kadibna waxaad taabataa random soo mid kasta xusiina color yar oo random aan islahayn koraan ka fiirnaa sidaas oo kale kadibna waxaan taabanaa Alt D kuwana meelahan kale gegeeda kadibna ku soo laabanaa markaad waa dhameeyay koobiyash meelaha u baahan inaan waagiyo kadibna ilaawin qaarkood inaad ka dhigtid yariis qaarkoodna ka dhigtid waaweyn saayida soo marka waxaa hubsataa inay dhulka si fiican u taabanooyin qaarkood dhulka saayid ugu weyn ugu fogaan dhahe hadda waan dhameeyay geedahan kala kan ugu dambeeya aan ku dhahaa Alt D soo markaad waan dhameeyay geedaha kadibna waxaan soo daasanayaa dhagaxyaasha dhagaxa waa kana kadibna inaan taaban Alt D meelaha kale wada geynina sida geedaha kale soo markaad waan dhameeyay dhagaxyaasha qaarkood ka dhiga yaryariis ka dhig si yani u noqdaan detail soo markaad waan dhameeyay dhagaxyaashan soo markaan soo gelin hamar bundada waatan soo qaar waxa u egtahay inay saayid u weyn tahay hadda xasuusteen videoga waxaan ugu dhahay waxaa sameyn kartaa curviga masa bedelina wax dhan kadib is wada bedelayaan soo hamaraan bedelno kana hoos u dhigana kan dhaxanta kadib hoos u dhigana hadda bahladan bataan ay laawin ina kan soo sokay taabatid hadda sameysay driverka kadib kaligiisa yaray labadaba is wada yareynayaan muddadan waa dhameynay olba diyaar noo sii ahayd soo markaa martiandhadiina furayna teendhada waxaan taabanaynaa kan teendhada koowaad kadibna waxaan geynaa meesha u baahannahay kadibna waxaan taabanaynaa kownkan weynka taabanaynaa kadibna meesha u baahannahay geynaa siga soo keligiisa la qaadana kulli soo wada raacayaan wax oo dhan soo markaa waan dhameynay wax walbo hadaa ka fiirin dhinaca materialka hal mar waxaa ogtahay inaa materialka markii ilaawna kan kale hal mar material siinaa mar material kaliya wax badan maaha inaa taabano kan aan dheenaa waxaan siinaynaa geedka kuwadan siinaynaa kana sidoo kale waxaan taabanaynaa bundada hal mar kadib materialkaasaan ugu kortuuraynaa haddaa maanta inaa kalarka sii bedbedeshid waxaad taaban kartaa la soco inaa kor aadidka u baahan tahay alam 19 taaban kartaa kadib kalarka ka dhiga wax yar oo iftiimayo kadibna sidii haddan sameynaynay kan soo qabo soo jiid kadibna ku kordaa soo sidaadii ku fudud haddana waxaan ku dhimay anigaba soo kamerada hadda taabano kamerno ma soo gelinayo waa inaan taabanaa Shift A kadib kamero ama inaan korkana ma karnaa kadibna kamera kadibna meesha u baahan tahay ka fiiri waxaad taabataa Control Alt Ever soo kamerada wixii kusoo boodiyay dhinacna ka fiirinaysid kadibna waxaad taaban kartaa Shift F kadibna hoos u dhig hadda isticmaalaysid Q gadaal S geesahana midiga bidixna oo ay D isticmaal kadibna W na hore kuga bixinaa sida game adigu ciyaari sidoo kale soo marka kameradan hagaajina hal mar soo marka kameradan dhameynay haddaad bikin uu noqdo ma taqaanaa micro shot camal waa inaa isticmaashaa waa inaa kamerada taabataa
ay maata dhinaca kamerada inta ka dhigo camal 70 millimeter camal kaas wuxuu ka dhigaa wax yacni oo yar oo kor laga fiirinayo camal ma fahanti magaalo yariis oo kale teendhadayni dabkeenu waxay yihiin inay yar yihiin soo s weyney timna dhulka la sim teendhadana weyney karnaa sidaan ahaan korkorna u weyney haddii u baahan tahay soo meesha dhul laakiin ma leh soo dhul saa u keenno control space aan taabanayna kadibna control a plane scale-ka 2 mitir waaye 100 mitir ka dhig kadibna hoosaan iskaga dhiga caadi waaye kadibna colorka waxaa sii kartaa oo materialka biyaha sii kartaa oo kale si markaa kor ugu fiirsi loo malayo island kadibna renderka hadaa ka imaano wax lama arkay wax kasta waa madow soo marka waxaan aadaynaa googlaha soo download gareys HDRI waxaa keli doontaa website-kan la dhaho Polyhaven waxaan dhigi doonaa videoga hoostiisa kadibna kusoo download gareyso hal k ama 2k oo HDRI laakiin laazim inuu noqdo wax ka badan 1k sababtoo ma fiirinuuno soo dhulka daanta fiirisid dhinacan soo marka wax soo gelin HDR soo gelin hal mar hadda soo geliyo HDRI hadda iftiinku yiraahan inta ka badi 4 ka dhig ama wax sidaas oo kale kadibna ogaa waxaad taaban kartaa shift F kadibna kamerada mar kasta si bedeli kartaa hadda ku shaqeynayna shift F dhinacan waxay ma kartaa view kadibna navigation kadib hoosana ku qoran tahay work navigation haduu ku lahayn right click kadibna waxa dhahdaa add quick favorite kadib markaas aad taabatid Q inta ugu soo bixi doontaa hal waxaan iga ilaaway renderka ma taqaanaa meeshan ay imaanaysiin halkan hoose waxaad taabanaysiin marka hore isticmaal EV hadda EV isticmaalis maadaama EV saayid ugu dhaqso badan tahay kadibna waxay imaanayaan meeshan kale waxa aadayna dhinacan hoose ku qoran tahay ma taqaanaa output-kaadina meeshan ka dhigo 30 frame waxa taabanayna meeshan hoose kadibna file uu ku save gareynayo ma taqaanaa sawiraantiina aan sameynayna meesha download-ka ugu sameyn doona file kadibna waxa taabanayna meeshan plus-kan kore kadibna waxaan ku qorinaa folder-ka waxa u baahanahay waxa ku qori karnaa image sequence image sq waxa soo gaabiyay sequence kadibna ina laba mar click siisid way file-ka kor joogtid kadib aan dhahna accept marka dhahan accept meeshan hoose ogaa inay ku tahay PNG ha ka dhigin FFmpeg video ha ka dhigin maadaama waxa uu dhigin waxay tahay marka dhaana renderkan wuxuu qaadan doonaa saacadooyin badan uu qaadan doonaa haddii u baahda lacal u baahdid oo kale inaad computerka isticmaashid ama inaad wax samaysid iyadoo marayso 80 camal ama 90 oo kale hadduu computerkaaga chargerka aanad gelin camal uu computerkaaga isdamiyo ama blender ku dhacdo crash camal file-kana fure blender mar labaad meeshaana ka dhigay 84 camal hadduu ku dhamaaday kadib haddana dhahna render animation meeshan oo kasii wada haddaa dhahan FFmpeg ma taqaanaa uu ilaa 80 soo gaara camal uu blenderkeena naga damo kale ama computerka isku laabo ama wax lee dhacan waa inaa haddii ku soo bilowdaa waxaanoo dhan renderka waa inaa 80kii file-kii hore uu sameeyey delete garay oo 80ka frame maadaama 80 uma baahnid 100 u baahan tahay waanaad ka dhigtaa lambar 1 haddana haddii ku soo bilowdaa waxaa laga yaabaa inay intaan 1 ilaa 8 inay kugu qaadato camal 30 daqiiqo hal sano inay kugu qaadato macquul haddii ku soo bilowday moogtahay marka sayid ay xun tahay marka so waxaa ka dhigtaa meeshan image sequence ka dhigo anaan tusay sida image sequence ugu dhigi kartid video waxay qaadanaysaa camera qaadanay kadibna marka hubso inaa meeshan file-ka geysay kadib aad inaa render frame hamar cameradan hamar hagaajin kameradiina uma keenay wax dhan ee nabad suusu aan ku isla meeshan joogno kor u bixina meeshan ay ku qoran tahay ma taqaanaa 1080ka meeshan aan gaabanayna hamar kameradiina si amar nagu hagaagto kamerada waxa isticmaalayaa 1920 by 1440 soo camera waxayna siinay square amalo Instagram-ka ama Facebook la saari karo kale soo markaas aad wax kasta waa dhameeyay kadibna meeshan ima waxa dhahdaa frame-ka hal frame san ku dhina render waxa rabnaa inaan meeshan composer-ka imaano aan color-ka hagaajino moogtahay maadaama kulligood hadhow tole mooda hagaaji karno wax ka fiican inaan hamar waxa dhan aan setup-kan sameeyno aan render aan soo laabana 2 saacadood kadib camal wax dhan noo wada dhamaadeen hamar hal frame bas dhahna render muhiim ku yahay soo ku soo bilaabi karnaa kadibna render image aan dhahna hadda kana sawirkiina noo dhameeyay waxay ku qaadataa camal 45 second camal ay ku qaadatay soo marka waxay qaadi kartaa saacad ama 2 saacadood inuu qaado doonta waxaan inaan dhameeyno marka camera imaana composer kadibna waxaan dhahna use node soo marka kana image-kiina markana iska xireyna kana iska laabno control shift click aan dhaha ogaa waana isticmaalusid node run killer waana isticmaalusid soo marka hamar VV aan taabana soo waxaan soo wada yareeyo waxaan gelinaynaa hue saturation
kana noo soo baxay kadibna control shift click aan dhinahay laftirkiisa ogaaw inuu meeshan ku jiro image factor-ka uunan gelin kadibna color-ka sawirkeena markaa aan hagaajino hal mar hadda kana kalaraantiin waan dhameynaa hadaba baahanta waxaa sii geli kartaa waxyeelooyin kale sida galleer camal soo galleer wuxuu ka dhigaa camal inay meesha uu iftiin meelaha qaarkood ka dhigo marka sida adiga ku anfacaysa ka dhiga marka soo marka hadda waa dhameeyey kalarka saanaan happy ku haddii loo fiiriyo sidii hore soo marka saan waan ku qanacsanahay marka waxaan dhahaynaa render animation aan dhahaynaa kadibna filekii haddii ayaan u sheegnay uu ka buuxi doonaa 300 oo sawiraan uu ku wada shubi doonaa soo ogaa waxaa isku laabin computerkaaga meel fiican ku yaalo marka hadda uu dhameeyey wax dhan waan sameynay animationka oo dhan marka kan aan iska bixinayna x kan render output kama taqaanaa kan wax kasta oo yaala meeshan uu ku shaqo leeyahay marka inaan waxaan ku sameynay render muu baahnay sababtoo ah sawiraan badan haysana mogtahay waan iska lid gareynaynaa inaan meeshan ku imaana ma taqaanaa aan dhahaynaa search image aan raadinaynaa image kana noo soo baxayo kadibna waxaan dhahaynaa meeshan wasaan taabanayna ku qoran tahay open filekiina hadaan raadinaynaa hal mar waa kana filekiina 300 oo sawir dhan halkan ay ku wada jiraan kulli waxaan taabanaynaa a kulli wada taabanaa kadibna waxaan dhahaynaa open soo waa kana wax dhan intay ku wada jiraan hal frame ilaa 300 frame haddana aan control click waa kuwana wixii oo dhan marka ogaaw control click marka dhaano waxaan wax dhan nooma sameynaa render meeshan waa madow soo inaan inta gelinaa kan la soco sidaan waa inay labadaba ku wada jiraan hadda meeshan aan ka bedeli karnaa png waxaan ku bedelinaa ffmpeg kadibna ogaaw meeshaan taabo dhibacaas yar kadibna waxa dhahdaa mp4 soo mp4 waa inuu ku daaran yahay saan u hubi soo marka hadda waan dhammeyn wax walba inaa meeshan kore inaa imaana meeshan aan ka bedeli karnaa meesha lagu save gareenaayo videogeena soo animationii hore aan iskaga daynaa kadibna magacaan iskaga bixinaynaa magaca camal waxaan iskaga bixinaynaa video camal kadibna accept kadibna waxaan dhahaynaa render animation wax badan ma qaadan doono waxay qaadan doontaa camal 5 daqiiqo camal maadaama sawiraantan bis isku dhijinaya waxaan dhan isticmaalayo soo hadaba maanta waxaan iska lidgare kartaa laakiin aski yeelan meeshan waxaan bis ku sameyn doonaa render markuu ku dhameeyo haddii aad sawirkii raadisid aad fiirisid videoga ku soo saaray video wax sidaan oo kale ku soo bixi doonaa imbraan arkiis waxaan ku soo dhaalgariyay sketchfab kadibna sida dabko kale baal waxaan u dhiibay oo baal goobin aan dhahay follow path aan dhahay way wada raaceen marka malaygana sidoo kale waxaan ku soo dhaalgariyay asiga xataa sketchfab kadibna animation yar aan ku sameeyay intaas waa soo marka aniga intaan iga ahayd insha Allah hadaa fiirsteen videoyaashan dhan waxaan rajaynaynaa wax ka barateen haddaa u baahantiin in videoyaal kale oo specific u baahantiin mustaqbalka insha Allah inaan soo saaro commentiga ku qora waxaan isku dayi doonaa inaan badiyo koorsiyaasha noocan oo kale ah si ay dadka mustaqbalka blender bara doonaan ama dadka hadda blender oo baranooyinba si ay yani u helaan wax course of Soomaali oo free ah insha Allah ku jirto YouTube-ka si ay u heli karaan oo fudud iyagoon lacag badan ku dhiibin koorsiyaal oo af Ingiriisi ama luqada kale ah marka hadda insha Allah ka heshaan koorsiyaashan like isaar insha Allah videoga dambe insha Allah isku arki doonaa waxaan leeyahay assalaamu calaykum ma salaama